xaqiiqdii maanta waxay ii tahay farxad aan la soo koobi karin oo qalbigayga taabato sababtuna waxa weeye magaaladan aan maanta imid oo ah caasimadii ku meel gaarka ahayd ee maamulka koonfur galbeed waa magaaladii igu wax soo saarka iyo wax ka qabadka ugu badnaa oo aan noloshayda geliyay magaaladan Baydhaba Jannaay waa magaalo qadiim ah xadaarad leh waqtigeedana hadde dad badan oo yar ayaa yaqaan halkan fadhiya marka aad ayaad ugu mahadsantahay madaxweyne inaan halkan imaado adigoo igu soo dhaweeyay igana codsaday inay noqoto magaaladii ugu horeysay oo aan u imaado shaqo intaan xafiiskan qabtay safarkan waa safar shaqo oo aan halkan ku imid wuxuuna qayb ka yahay waxqabadkii iyo waxyaabihii la taaban karo ee wasaaradaha dowladda federaalka ah ee xukuumadeyda aan ku heshiina 100 maalmood ayuu hordhac u yahay taasoo aan ugu nimid inaan soo booqanno mashaariicda hadda gabagabada marayso kuwa cusubna aan dhagax dhigi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo marka farxaddaas iyo reereyntaas waa ku mahadsantahay si aad noogu soo dhaweysay idinkana waxaa idin leeyahay magaaladan magaalo barwaaqo allah ka dhigo shacabka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyagana mahad ballaaran ayaan u jeedinayaa waa dad sabir badan dad wanaagsan dad xaqiiqdii yaqaan dawladnimada iyo sharafta qaranka Soomaaliyeed waaye marka aad ayaan iyagana ugu mahad celinayaa waa mahadsantihiin soo dhaweynta aad ii fidisaan aniga iyo wasiirada ila socday oo ka kooban wasiirro kala duwan dibna aan ugu kulmi doono shirar gooni ah iyo mid gaar ah